shirkadda Sanaag Fishing Company oo ah shirkad laga leeyahay gobolka Sanaag isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyayba ku hawlanayd sidii bulshadeeda ay uga faa'iideyn lahayd kheyraadka badda gaar ahaan kalluunka ayaa bilowday inay shixnado kalluunka noocyadiisa kala duwan ah gaarsiiso caasimadda Soomaaliland iyo Hargeysa. haddaba cali saalax jaamac cali dheere oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka shirkaddan ay ku rakiban yihiin qaboojiyayaasha looguna talagalay inay kalluunkan qaadaan isla markaana gaarsiiyaan gobollada fogfog oo degmada Yube ee bariga Sanaag aan kula kulmay isagoo safarkiisan dheer ku guda jiray ayaa wuxuu iga warramay shixnadahan kalluunka ee caasimadda Soomaaliland u iibgeeyaan iyo waliba shirkaddan Sanaag Fishing Company. saad u jeedaan waxaan sidnaa kalluunkii waxaan ka keenay laasqoray degmada laasqoray waxaan ka soo baxay xalayto xalay una habeenimo baa halka imin saaka intaan wax habeenimo baan joogay iminkana waa tegayaa insha Allah waxaan ku soo horeyn doonaa Ceelgaabo waxaan ku wadnaa ilaa Hargeysa oo transit ku yahay waxaan ka soo iibinay dhul badan sida baran oo kale hadaftimo oo kale halka qayb baan ku rognay wadadana waa ku soo iibin doonaa waxaan gaarsiin doonaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa insha Allah waa kalluun fresh ah oo sidoo badda uga soo baxaya talaagadu waa qalajiye oo dee way qalajisay oo sidiisa isagoo aad qofka ay loo geynayaa biyo baa lagu ridayaa wax noqonayaa sidoo badda uga soo baxay waa arrin aad iyo aad runtii muhiim u ah oo dadku yacni aad ugu baahan yahay waa maaddo xagga caafimaadka kalluunka marka laga eego qofka bini'aadamka dee u baahan yahay waxaan ku baraarujinaynaa u sheegaynaa degmahan Yube oo anigu aan ku dhashay deganahayna inay la qabsadaan kalluunka waayo faa'iido badan buu leeyahay oo qofka yacni dee waxtar u ah insha Allah waxaan ku rajo weynahay inay dadku sida uu yahay u fahmaan waa shirkad Sanaag Fishing Company baa la yiraahdaa waa shirkad hadda 3 sano meelaha shaqeynaysay oo iminka hore u socota oo gaadiidkeeda leh talaagadu tan qura maaha ninka mid kale aan raray oo noocan oo kale ah oo la rabaa tan markii kalluunka iibiso inay dhaafto oo timaado waxa jira qaboojiyayaashii oo qayb hadda la qoray iminka taalo waa shirkad aad iyo aad u ballaaran gaarigana wuxuu qaadaa tankiisu 18 oo kiilo buu qaadaa iminka waxa saaran 80 marka waxa noo khasbaysaa ilaa Hargeysa in la geeyo deegaanka tuulooyinka ilaa Ceelgaabo ma qaadan karaan in marka magaalooyinka waaweyn oo dadka badan joogaan dil la gaarsiiyo taan baa sababta keentay waana kalluunka desaad aragtay baalku marna dee yacni kalluun qoyan oo macnaha aan isqaadi karin marna waa kalluun qalalan hadduu qalalo qabowgun baa lagu hayaa inuu neefsado ama qabow ka buuxun baa loo diidaa sidiisaas uu buuxanayaa hadda 80 ilaa 80 bar baa saaran markiisii hore ilaa 12 meelaha soo ahaa inta kale waxaan ku soo iibinay wadada barnaamijka marka kalluunka waa Sanaag Fishing Company biskiisa laga soo qaadana waa laasqoray oo gobolka Sanaag waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Kalsan TV Ceelgaabo